kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halkan waa xogta dalka qodobada warkeena aad ku daawan doontaana waxaa ka mid noqon doona madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo xilka qaadis iyo xarag isugu daraya taliya odawaa odayaasha abgaal oo u kacay siday u heshiisiin lahaayeen xasan sheekh maxamuud iyo cali guudaabe farmaajo oo kasoo degaya muqdisho iyo siyaasiyiin caan ah oo kusoo dhaweynaya muqdisho wararka ugu dambeeya xaalka siyaasadeed ee dalka muqdisho oo xaaladii ugu adkeyd ee hadda ka jirto kooxda madasha samata bixinta oo markan rabta in ay banaanbaxeeda ay dhigato xilli dowladda federaalk soomaaliya ay si weyn uga soo horjeeda banaanbaxa sida weyn loogu taageerayo kooxda madasha samata bixinta loogana soo horjeedo dhulboobka xasan sheekh maxamuud wararkaas iyo warar kale oo xiiso badan ayaan daawadayaal warka janalkeena xogta dalka kusoo qaadan doonaa daawade haddii aad janalkeena ku cusub tahay subscribe noo saar janalka like share comment waa dhankaaga aan ku bilaabo qodobka ugu horeeya ee warkeena xasan sheekh maxamuud ayaa xilka ka qaadayo taliya odawaa yuusuf raage isagoona doonayay inuu xitaa u xiro warar hoose ee heshay warbaahinta xogta dalka ayaa waxay sheegayaan in taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya maalmihii ugu dambeeyay amar qaldan uu bixiyo xasan sheekh maxamuud uu gabi ahaanba uu kasoo horjeestay isla markaana uu arkay xasan sheekh maxamuud go'aamadiisa qaldan ayaa hadda waxaa xasan oo isku dayayaa inuu gabi ahaanba uu xilka uu ka qaado odawaa yuusuf raage sida wararka aan ku helayno odawaa ayaa waxaa la tilmaamay in xasan sheekh maxamuud amaro fara badan uu soo saaray uu si toos ah uu kaga soo horjeestay waxaana amaradaasi ka mid ahaa amarkii la sheegay dagaalkii ka dhacay saldhigga degmada warta nabadda ee gobolka Banaadir ee u dhexeeya mucaaradka iyo ciidamada dowladda Soomaaliya waxaana xasan sheekh maxamuud isagoo Mareykanka ku sugan oo odawaa yuusuf raage ugu la hadlay sida ugu dhaqsiyaha badan inuu kusoo gabagabeeyo kooxda mucaaradka madasha samata bixinta isla markaana uu tallaabo adag u ka qaado taasi oo hadal heer badan dhalisay laakiin odawaa yuusuf raage ayaa toos kaga soo horjeestay amarkaasi xasan sheekh maxamuud oo bixiyay waxaana amarka xasan sheekh maxamuud uu noqday mid odawaa oo toos uu kaga soo horjeestay sidoo kale xasan sheekh maxamuud ayaa odawaa kaga shakiyay inuu la kulmay madasha mucaaradka samata bixinta hogaamiyahooda sheekh shariif sheekh axmed waxaana sheekh shariif sheekh axmed la sheegay in odawaa yuusuf raage uu balaqaadyo fara badan uu u sameeyey sidoo kale wararka hoose aan helayna waxay sheegayaan in taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya durbaba uu feejignaan gooni ah uu galay maadaama kooxda filla Soomaaliya ay wado abaabul aad u xooggan oo xitaa la doonayay in lagu xiro taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya odawaa yuusuf raage taliya odawaa yuusuf raage ayaa waxa uu hadda la kulmayaa laba darar mid dooro oo ah in kooxda xasan sheekh maxamuud uu kasii tirsanaado ama kooxda mucaaradka madasha samata bixinta la magac baxday wararka sidoo kale waxay sheegayaan daawadayaal in xiisada siyaasadeed ee xasan sheekh iyo odawaa u dhaxayso ay aad u sii kordhi karto isla markaana hadda odawaa uu doonayo inuu waji cusub oo aad u adag uu la soo baxo oo ku doonayo inuu kaga guuleysto xasan sheekh maxamuud iyo xulafadiisa maadaama qalaad beenah ay dusha ay ka saarayaan laga kala farmaajo ayaa waxaa lagu wadaa inuu xamar uu ka soo dego wararka ugu dambeeya aan helayna ayaa waxay sheegayaan in maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo hogaamiyihii hore ee dalka uu dhowaan muqdisho ka soo degi doono isla markaana ay si weyn u soo dhaweyn doonaan qaar badan oo ka mid ah siyaasiyiinta balaha abgaal iyo sidoo kale beesha shiiqaal sida wararka aan ku helayno warar hoose ay heshay warbaahinta xogta ayaa waxay sheegayaan in saraakiil fara badan ay durbaba u sacbatubayaan maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo hogaamiyihii hore ee dalka waxaana farmaajo wararka hoose ay sheegayaan in saacadaha soo socda uu kasoo degi doono muqdisho waxaana soo dhaweyntiisa u xil saaran alxaaji muuse suudi yalaxow oo la sheegay inuu u ballanqaaday in muqdisho cid ku taabo karta aysan jirin tanna waxay ka dhigan tahay in durbaba beesha uu ka dhashay muuse suude ay durbaba ay u sacbatumayso madaxweynihii hore ee Soomaaliya waxaana lagu ballansan yahay in degmada Kaaraha qayb ka mid ah la dejiyo farmaajo wararka sidoo kale waxay sheegayaan
in saacadba saacadda ka dambeysa xaaladdu ay aad u sii adkaanayso kooxda farmaajada ay ugu diyaargaroobayaan inay ku soo dhaweeyaan magaalada tani caasimadda ah ee Muqdisho. Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa tan waxa uu arkaa muhiimad gaar ah maadaama uu doonayo inuu ka guuleysto Xasan Sheekh Maxamuud oo hadda dalka maamulo. Wararka sidoo kale waxay sheegayaan in xaaladdu ay aad u kacsan tahay saacadihii la soo dhaafay, على ساعات بساعات كده بيسا جرا حالات أدق أو برشدو أي لكل بيان على برشدو أي سوين الجارة وهايان سيدا وحول بي يسكو بدل كران قام فرماجو يسيدا فرماجة تاجرياش يسا مقدشو وقصة بحضانان فرماجة تاجرياش يسا أيا الكود وين وحوي هاي اللي يسوق روح بدل مجالدو ويقصوا دويان مجالدو أي نقطة جو الدجن إيه كستو كوحدة حسن شيخ له ay ka soo horjeedo in farmaajo Muqdisho dhexdeeda lagu soo dhaweeyo inkastoo aan la ogeyn xaaladda adag ee hadda uu la kulmi doono Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo. beelaha degan Muqdisho qaarkood ayaana taageero cad u muujinaya madaxweynihii hore ee Soomaaliya. dhinaca kale daawadayaal kooxda mucaaradka madasha samata bixinta Sheekh Shariif Sheekh Axmed Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame iyo sidoo kale qaar badan oo uu ka mid yahay Xasan Cali Kheyre Koofi dhabaatood hadda waxay u diyaar garoobeen banaanbixii ay doonayeen inay dhawaan qabsadaan. kooxda badasha oo hub badan heshay ayaa hadda waxaa la sheegayaa in ay durbaba ay wado abaabulkii ugu dambeeyay oo ay kaga guulgaarayaan ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya, inkastoo dowladda Xasan Sheekh Maxamuud ay go'aamo adag ay ku soo rogtay kooxda mucaaradka madasha samata bixinta. kooxda mucaaradka madasha samata bixinta ayaa hadda waxay wadaan abaabulkii ugu dambeeyay oo ay kaga adkaanayaan kooxda Xasan Sheekh Maxamuud oo ay doonayso in ay gabi ahaanba ay gacmaha ay ka qabtaan kooxda mucaaradka madasha samata bixinta banaanbaxoodana la joojiyo. laakiin kooxdu markaan waxay sheegtay inay isku tashatay isla markaana ay marnaba inay ku qanacsaneen go'aamada uu qaadanayo Xasan Sheekh Maxamuud iyo kooxdiisuna ay yihiin kuwa aad dhibaato u wada. laakiinse wararka ugu dambeeya aan helayna waxay sheegayaan in kooxda haddu ay dhaxdu u xiratay sidii banaanbaxooda uu ku dhici lahaa, isla markaana cid kasta oo ay kaga soo horjeesan lahaayeen talaabada qaldan ee mararka qaarkood lagu la kacayo kooxdan ayaa rajadooda iyo riyadooda ugu weyn waxay tahay in ay isbedel cusub ee la yimaadaan, isbedelkaasina uu noqdo mid ay ku guulgaaraan cid kastana ay kaga adkaadaan. waxaana saacadihii la soo dhaafay socday abaabul aad u xoogan oo ay kooxda madasha samata bixintu ay sameeysay. abaabulkan ayaana waxaa la sheegay in uu yahay mid ay doonayaan inay ku dhigtaan banaanbaxooda oo ay kaga soo horjeedaan Xasan Sheekh Maxamuud dhulboobka Muqdisho ka soconayo. tanna waxay ka dhigan tahay culayska cusub ee bulshada mararka qaarkood ay la kulmi karaan maadaama kooxdan ay si weyn dhibaato xoogan loogu eedeeyo inay Muqdisho ka sameyso. laakiinse Sheekh Shariif Sheekh Axmed, Xasan Cali Kheyre, Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame dhammaantoodba yoolkooda waxa uu yahay in uu guuleystaan oo ay talaabo adag ay qaadaan oo mar waliba ay ka guuleystaan cid kasta oo isku daydo in ay joojiso banaanbaxooda. banaanbaxa kooxda madasha samata bixinta dhowr jeer ayaa la joojiyay. hadda mar kale Xasan Sheekh iyo kooxdiisa waxay isku dayayaan in ay joojiyaan, laakiinse durbaba kooxdan ayaa ka warheshay go'aan adagna qaadatay. guudaan daawadayaal warkii oo aad ka daawanayseen xogta dalka saaxiibayaal oo laga itaa daawaday. haddii aad janaalkeena xogta ku cusub tahay subscribe loo saar janaalka, like, share, comment waa dhakiina waa baasantihiin nabadgelyo.